Asalaamu calaykum daawadayaal soo dhawaada. Maanta waxaynu khulaasaynaynaa filimkeena Harry Candy ee sheekadii gabadhii yareed ee daminka dhimashada ah u dhigtay ninkii internetka ay ka baratay. Bilowga filimka waxaynu arkaynaa Hailey iyo Jeff oo iska bartay meelaha lagu sheekaysto ee internetka, iyadoo waa 14 jir isaguna waa 32 jir. Jeff waa sawir qaade, shaqadiisuna waxay tahay inuu dadka sawiro. Kadib sheekadooda internetka, Jeff wuxuu Hailey ka codsanayaa inay kulmaan. Iyadoo ay taasi jirto, Hailey waxay ogolaatay inay Jeff kula kulanto maqaayad. Waxay ku heshiiyeen waqti iyo goob. Haileyna waxay timid goobtii ka hor ninkan ka weyn ee ay ku bilansanaayeen. Inta ay miiska ku haasaawayeen, ogeysiis ku saabsan gabadh la yiraahdo Donna ayaa lagu arkay derbiga. Kadib markii ay qaxwada cabeen, Jeff wuxuu Hailey u iibiyey fanaanad hadiyad ah, wuxuuna u sheegay inuu guriga ku hayo duubitaan naadir ah oo ku saabsan kooxda ay jeceshahay. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu u sheegay inuu guriga ku casuumi karin, wuxuuna u soo jeediyey inuu muuqaalka ugu soo diro emailka. Laakiin Hailey ayaa ku adkaysatay inay gurigiisa booqato, Jeff ayaana ugu dambeyntii ogolaaday. Hailey waxay ku kalsoon tahay inay hadda safe tahay oo ay raaci karto nin qariib ah maadaama ay ku kulmeen meel dadweynaha. Haddii ay wax ku dhacaan, Jeff si degdeg ah ayaa loo soo heli doonaa. Inta ay gaariga ku jiraan, Hailey waxay u faraxsan tahay sida carruurta. Markii ay guriga Jeff tageen, wuxuu u soo bandhigay cabitaan, laakiin Hailey way diiday. Sababtoo ah waxay isku daydaa inayna cabin wax uu qof kale u soo diyaariyay, gaar ahaan xaaladan oo kale. Iskuulka waxaa lagu baray inayna cabin wax aysan iyagu gacantooda ku soo samaysan. Waxay tagtay qaboojiyaha, waxayna soo heshay xoogaa vodka iyo casiir liin ah, waxayna cocktail u samaysay iyada iyo Jeff. Kadib waxay bilaabeen inay sheekaystaan. Hailey ayaana ogaatay waxyaabo ku saabsan waayihii hore ee Jeff, oo ay ku jirto inuu mar la baashaalay gabar uu sawir qaado u ahaa markuu yaraa. Darbiyada guriga Jeff waxaa lagu qarxiyay sawiradii gabdhihii uu u shaqayn jiray. Markii Hailey ay qaaday mid ka mid ah sawiradii, Jeff si kulul ayuu uga falceliyay. Gabadhu waxay qaaday sawirkii Janelle oo u muuqata mid uu jecel yahay. Markii ay aad u sakhraameen, Hailey waxay ka codsatay inuu sawir ka qaado. Markii hore Jeff wuu diiday, laakiin Hailey ayaa ku guuleystay inay ku qanciso. Jeff wuxuu dareemay xanuun iyo dawakhaad. Markuu bilaabay inuu gabadha sawir ka qaado, wejigiisana aad ayuu isu bedelay, wuxuuna bilaabay inuu la hadlo isagoo dabaqsan. Kadib wuu dhacay, miyirkiisana ayuu beelay. Jeff markuu miirsaday, wuu xaqiiqsaday in Hailey ay isbursi ku xirtay. Waxay u qaratay inay cocktailka ugu dartay nooc ka mid ah mukhaadaraadka ama dawada suuxisada. Hailey waxay ogtahay sababta sawirada badan ee gabdhaha yaryar ay ugu dhagan yihiin derbidiisa. Waxay ogtahay in uu Jeff uu rabay inuu u dhawaado uuna wax la sameeyo sawirada kadib. Waxay ogaatay xilliga ay deriskiisu maqan yihiin, waxayna ballanta u qabsatay maalinta ay derisku maqan yihiin si ayna cidna u carqaladayn. Intii ay ku jireen sheekada internetka, Hailey waxay si ula kaca u tijaabisay Jeff si ay u aragtay inuu dhab ahaantii u xiiseeyay gabdhaha yaryarka. Waxayna heshay caddayn ku filan oo muujinaysa in Jeff uu yahay ninkii ay raadinaysay. Si kastaba ha ahaatee, Hailey waxay xiiseynaysaa caddayn dhab ah, sawiro ama muuqaallo. Sidaas darteed waxay baartay guriga, waxayna heshay warqado ka yimid Janelle. Janelle iyo Jeff muddo ayay waraaqada isweydaarsanayeen, laakiin Hailey aad uma xiisayso waraaqaha. Kadib markii ay baartay kombiyuutarkiisa, Hailey waxay ogaatay in Jeff uu dhawaan soo dejiyay sawiro, laakiin aysan ku jirin kombiyuutarka. Waxay baartay guriga oo dhan, waxayna sariirta hoosteeda ka heshay biskoolad, kaas oo ay go'aansatay inayna taaban hadda. Markaasay Hailey heshay qasnad qarsoon. Waxay ogaatay in halkan ay tahay meesha Jeff uu ku hayo caddaymaha ugu muhiimsan. Jeff wuxuu isku dayaa inuu maskaxdeeda mashquuliyo isagoo la hadlaya, isagoo u malaynaya inuu ku qancin karo inay xariga ka furto. Laakiin Hailey iskuma daydo. Aad ayay uga caqli badan tahay in la khiyaaniyo. Hailey waxay ku tijaabisaa koorar kala duwan, waxayna ku guuleystaa inay furto qasnada. Dhammaan lambaradii ay gelisay waxay la xiriireen Janelle. Gudaha qasnada waxaa ku jiray sawiro qaawan, dhiski ay wax ku duuban yihiin iyo hal sawir oo gabadh ah oo uu Jeff isagu qaaday. Markii Hailey ay wax yar mashquulsaneen, Jeff ayaa laaday. Intii ay xanuun ka soo kabsanaysay, isagoo kursigiisa ku xiran ayuu aaday dhanka qolka hurdada. Halkaas wuxuu ka soo qaatay biskooladii, wuxuuna ku soo laabtay qolka fadhiga, laakiin Hailey way isqarisay. Waxay ka soo weerartay gadaal, waxayna wejiga uga duubtay bacda balaastiga ah. Jeff wuxuu isku dayay inuu halgamo, laakiin Hailey ayaa aad uga xoog badnayd. Markii uu miir doorsamay, Hailey waxay ka saartay bacdii si uusan u dhiban. Kadibna waxay u jiiday dhanka miiska. Markaasay mar kale si adag u xirtay. Markii uu Jeff miirsaday, wuxuu ogaaday inuusan xirnayn wax surwaal ah. Hailey waxay si dadban ugu sheegaysaa inay u ciqaabayso dilka Donna, gabadhii la la'aa. Si kastaba ha ahaatee, Jeff wax walba wuu inkiray, wuxuuna diyaar u ahaa inuu isu dhiibo booliiska oo uu sheego wax walba oo ay Hailey ka dalbato. Laakiin waxay ogaatay in ciqaabtu sharcigu bixiyo ay aad ugu fududaan doonto ninka caynkan ah. Waxay rabtay inay wax ka sii daran ku samayso. Intii ay Hailey sugaysay waqtiga saxda ah, waxay warqad u qortay Janelle si ay Jeff ugu xanaajiso uguna dhibto. Jeff wuxuu isku dayay intii karaankiisa ah inuu ka dhaadhiciyo inay ka laabato qorshaheeda. Wuxuu u soo bandhigay inay qaadato lacagtiisa iyo qalabkiisa, laakiin beddelkeeda ay u dayso waxa ugu muhiimsan oo ah naftiisa. Laakiin Hailey ma xiiseynayso lacagtiisa, waxay aad u xiiseynaysaa inay ka qaado waxyaabaha ugu muhiimsan. Hailey wax walba way diyaarsatay, waxayna u soo degtay si ay u dhameyso shaqada.
laakiin kahor intaysan bilaabin waxay qaadatay xogaa daqiiqadaha si ay ugu xirto kaamiradeeda TV-ga. Waxay rabtay in Jeff uu daawado waxa ay ku samaynayso. Intii ay maqnayd Jeff wuxuu isku dayay inuu gaaro telefoonkiisa oo ag yaala laakiin ma uusan gaari karin sababtoo ah Haley ayaa si degdeg ah u soo laabatay. Waxay u sheegtay in telefoonka halkaas ay u dhigtay si ula kaca si ay ugu dhigto dabin. Ugu dambeyntii Haley waxay bilowday inay fuliso qorshaheeda naxariis darada ah. Inta ay shaqada ku jirtay waxay Jeff si cad ugu sifaynaysaa waxa ay samaynayso taas oo ah inay ushiisa ka jarayso taasoo ugu dambeyntii maskax ahaan niyad jabisay. Markii ay wax walba dhammaadeen iyaduna ay heshay aarsigeedii Jeff ma uusan danaynin waxa ku dhacaya mar dambe. Si kastaba ha ahaatee Haley waxay siisay xogaa talooyin waxtar leh oo ku saabsan sidii uu uga soo kaban lahaa waxaas oo dhan. Kadibna waxay aaday inay qubaysato. Jeff wuxuu isku dayay inuu iska furo waana ku guuleystay. Wuxuu soo bixiyay hal gacan kadibna gacantii kale ayuu iska furay wuxuuna xaqiiqsaday in gabadhu aysan waxba u geysan dhab ahaantii. Daawada halkan hadaa soo gaartay waxa ka codsanayna inaad muuqaalka like noo saartay subscribe-na channelka soo taacday gambaleelkana furatay si ay muuqaaladeena xiisaha leh kuu soo gaaraan. Wax walba sidoodii ayay ahaayeen markuu xaqiiqsaday inaan waxba loo geysan wuxuuna qabsaday telefoonkiisii wuxuuna rabay inuu u yeero booliiska laakiin maskaxdiisa ayuu bedelay. Intuu taas samayn lahaa bedelkeeda Jeff wuxuu qaatay mididii qalinka ee Haley ku shaqaynaysay wuxuuna aaday qolka qubayska ee ku jiray. Laakiin Haley xaaladan xitaa hore ayay u soo eegay waxayna u daysay Jeff keligii si uu la kac iskaga furo una soo weeraro. Qorshe ayay u diyaarsay Haley waxayna Jeff ku dhufatay qalabka dadka lagu koronteeyo. isla markiiba ma shaqayn sababta ah uu iska caabiyay laakiin waxay ku guuleystay inay ka adkaato. Intii uu Jeff miir la'aa Haley waxay tirtirtay dhammaan raadadkii muujinayay inay guriga timid. Jeff wuxuu ahaa nin adag markuu ka soo baxay qolka qubayskana waxay ku qasabtay inay mar kale korontayso. Markii Haley ay dhameysay nadiifintii waxay qortay warqad dardaaran ah oo ay magaca Jeff ku qortay. Waxay u soo dirtay Janelle waxayna wacday sarkaal boolis ah iyadoo ka codsatay inuu yimaado guriga. Haley waxay kadib kursi dhigtay qolka fadhiga waxayna soo jiiday Jeff oo miir la'aa. Waxayna ku istaajisay kursigii iyadoo qoorta u gelisay xariga daldalaada. sidoo kale waxay ku xirtay kursigii si uusan uga dhicin ilaa uu ka miirsanayo. markii Jeff uu miirsaday waxa la soo garaacay albaabka waxay ahayd deriska oo keentay buskut ay gabadheedu soo dubtay. si kastaba ha ahaatee taas marmarsiyo ayay ahayd waxay dhab ahaantii rabtay inay ogaato waxa dhacaya. daqiiqado ka hor waxay aragtay Haley oo joogta saqafka guriga. Haley waxay deriskeeda u samaysay marmarsiyo lagu qanci karo iyadoo u sheegtay Jeff inuu abtigeed yahay waxayna u sharaxday inuu xanuunsan yahay waxayna kor u fuushay saqafka si ay godka xariga u hagaajiso. Jeff wuxuu maqlay sheekadooda wuxuu xaqiiqsaday in derisku ay shaki qabto wuxuuna rajeeyay inay booliska u yeerto si degdeg ahna looga soo daayo. si kastaba ha ahaatee Haley ma sugin booliska inay yimaadaan. waxay Jeff siisay doorasho haddii uu isaga isdaldalo waxay baabi'in doontaa dhammaan cadeymaha dambiyadiisa naxariis darada ah. haddii uu diido Janelle ayaa imaan doonta oo ogaan doonta runta isaga ku saabsan. Jeff wuxuu sii waday inuu iska fogeeyo eedaynta dilka Donna laakiin Haley way ka diiday in lagu qanciyo been. isagoo quus ah wuxuu ku qabtay lugihiisa wuxuuna isku dayay inuu khaarijiyo laakiin ma uusan lahayn xoog ku filan. Haleyna way ka baxsay. Jeff waa iska furay xarigii wuxuuna ka daba orday iyadii. Haley waxay ku soo carartay saqafka guriga halkaas oo ay horey ugu diyaarsay ciqaabtiisa. Jeff wuxuu watay mindi laakiin Haley waxay haysatay biskoolad. ma aysan rabin inay toogato markii Haley ay saqafka fushay. waxay ogeyd in uu Jeff ka daba imaan doono waxayna sii ogeyd inay labadooduba halkaan imaan doonaan. waxay hore saqafka ugu xirtay xarig leh meel qoorta la geliyo. Haley waxay Jeff u soo bandhigtay isla dooqii ahaa inuu xariga qoorta gashado oo uu saqafka ka booday isaga laftiisa ama in Janelle ay ogaato runta isaga ku saabsan isagoo quus ah. Jeff wuxuu qirtay inuusan dilin Donna balse uu arkay saaxiibkiis oo dilaya. Haley waxay u jawaabtay markii uu saaxiibkiis ku jiray xaaladda Jeff oo kale uu isna sheegay inuu Jeff uu ahaa gabadha kii dilay. isla waqtigaas Janelle ayaa baabuur ku soo istaagtay guriga Jeff horteeda. isagoo aan haysan doorasho kale Jeff wuxuu gashaday xarigii wuxuuna ka booday saqafkii. daqiiqadii ugu dambeysay Haley waxay u sheegtay inaysan marnamo qarin doonin dambigiisa. Janelle ay ogaan doonto qofka uu dhab ahaantii ahaa. kadibna markii ay afjirtay gacan ku dhiiglihii labaad ee Donna Haley si degan ayay alaabteeda u xirxiratay waxayna ka tagtay gurigii Jeff. sheekada filimkeena halkan ayay ku egtay daawada. haddii aad ka heshay qaabka aan u falaqeeyay filimkan fadlan like saar muuqaalka si uu dad badan u gaaro. sidoo kale ha iloobi inaad subscribe dhahdo si aanan u seegin qulasooyinkeena xiisaha leh ee ammaan walba soo gelino. mahadsanid.